waa kuma ninka Soomaaliga ah ee maanta loo doortay gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Itoobiya. Aqalka sare ee baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay loo xushay afhayeen Soomaali ah. kala fadhiga shanaad ee golaha federalismka ee dalka Itoobiya ayaa maanta waxa ay cod aqlabiyad ku doorteen gudoomiyaha cusub ee aqalka sare ee dalka Itoobiya kaas oo markii ugu horeysay taariikhda dalka Itoobiya loo doortay nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Aadan Faarax Ibraahim kana soo jeeda dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. aadan oo ah siyaasi caan ka ah dalka Itoobiya ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay deegaanka Soomaalida iyo ismaamulka Diridhabe. hadda waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida isagoo hore u soo qabtay xilalka maayarka ismaamulka Diridhabe iyo xilal wasiiro. gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Itoobiya Aadan Faarax Ibraahim ayaa bedelay gudoomiyihii hore ee golaha aqalka sare ee dalka Khayre Ibraahim xilkaas oo maanta iska casilay. aadan faarax ayaa ku dhashay deegaanka Soomaalida wuxuuna ka soo jeedaa qoomiyadda Soomaalida. waxbarashadiisa heerka koowaad iyo heerka labaad waxa uu ku qaatay gudaha dalka Itoobiya. waxa uu si gaar ah ugu takhasusay arrimaha Carabiga iyo sidoo kale luqadda Amhaariga iyo tan looga hadlo dalka Itoobiya iyo waliba luqadda Ingiriiska. wuxuu sidoo kale gudoomiyahan lagu xasuustaa in uu qayb ka qaatay nabadeynta qoomiyadaha Oromada iyo Tigreega iyo sidoo kale Soomaalida kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku dagaalami jiray gudaha dalka Itoobiya. waa taariikh xusi doonta Soomaalida ku dhaqan dalka Itoobiya maadaama ninkan uu noqday ninkii ugu horeeyay ee Soomaali ah xil sarana ka qabta dalka Itoobiya.